بسم الله الرحمن الرحيم. maanta xafiiska hay'adda TPEC waxaan ku wada qaadanay guddiga doorashooyinka heer federaal ee madaxa bannaan iyo khubaro ka tirsan qaramada midoobay waxay noo soo jeediyeen hal arrin oo ku saabsan sidii daraasad wadajir looga samayn lahaa 2020 qaabka codbixin hay'adda loo diiwaangelin lahaa ama loo gaari lahaa arrinkaas bay noo soo jeediyeen annagana waxaanu nidhi waan jeedsanay annaga waxaa mudnaan noo ah 2020 iyo xaaladda Soomaaliya waxaa nooga mudan oo mudnaanta koowaad annagana noo ah 2019 ilaa 18 inta la gaarayo in wixii mudnaanta ah oo aanu uga baahannahay qaramada midoobay iyo heer federaal guddiga madaxa bannaan wixii gacana waad naga siin kartaan inaad naga siisaan labadaas erey baanu islaafsanay kollayna kulamo dambe baanu yeelan doonaa wixii ka soo baxana waan isla ogaan doonaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.